السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daalaca news channel. daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. habinta dhacdooyinka la yaabka maanteetu waxaynu ku soo qaadanaynaa haweeney 5 gabdhood dhashay oo ku eedeysaygeeda inuu u furay iyadoo aan dhalin wax wiil ah. booliska magaalada Sambal ee gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya waxay diiwaan geliyeen kiis ay hooyo haysata 5 gabdhood u gudbisay iyadoo ku eedeysay inuu saygeeda 3 dalaaq triple dalaaq hal mar ku furay kadib markii ay u dhashay gabadhii shanaad. haweeneydaasi oo haatan ku nool gurigii ay ku umushay ayaa gudbisay dacwadaasi kadib markii uu saygeeda dalaaqay markii ay bishan 11 u dhashay gabadhii shanaad. waa sida ay hadalka u dhigtay. haweeneydaas oo magaceeda la qariyay waxay sheegtay in saygeeda oo lagu magacaabo Kamil ay isguursadeen muddo haatan laga joogo 11 sano isla markaana ay u dhashay ama ay u haysay 4 caruur ah. waxay intaa ku dartay markii uu saygeeda maqlay in gabadhii shanaad loo dhalay bishan Oktoobar 11 inuu telefoon ku soo wacay iyada isla markaana ku wargeliyay inuu 3 dalaaq ku furay. dhinaca kale hadal ka soo baxay booliska magaalada Sambal ee gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya waxay ku sheegeen inay diiwaan geliyeen kiiska haweeneydaasi la dalaaqay isla markaana ay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ay u kurgalayaan sayga la soo eedeeyay. sarkaal boolis oo lagu magacaabo Yamuma Barasad waxa uu wariyaasha u sheegay inay haweeneyda buuxisay dacwad ay ku sheegtay inuu saygeeda 3 dalaaq ku furay isla markaana ay booliska diiwaan geliyeen gal dacwadeedkeeda oo hoos tagaya qodobada 147 452 323 iyo 504 ee xeerka ciqaabta dalka Hindiya iyo sharciga haweenka muslimiinta ee badbaadinta xuquuqda guurka. waa sida uu hadalka u dhigay. daawadayaal xubinteena la yaabka waa naginta waxaad kala socoteen daalaca news channel. waana ku mahadsantiin daawashadiina.